waxaynu ku hormari doonaa 21 qof ugu yaraan uu ku geeriyootay rasaas toos ah oo lagu tuuray arday iyagu wax ka barta iskuul ku yaala dalkaasi Mareykanka. 21 qof ugu yaraan ayaa geeriyootay toogasho ka dhacday dugsi ama iskuul ku yaala gobolka Texas ee dalkaasi Mareykanka, sida bayaan rasmi uu soo saaray gobernatoraha gobolkaasi Greg Abbott uu warbaahinta ugu sheegay. qof hubaysan oo daadiisu ay ahayd 18 jir ayaa waxa uu toogasho ama toogtay 19 arday macalinkoodii oo iskuulka Rob ee iskuul dhexe magaalada Uvalde ee gobolka Texas iyagu ku sugnaa. Mr. Abbott waxa uu sheegay in qofka isagu hubaysnaa uu huwanaa bastoolad, waxaana sidoo kale uu sheegay in qorina sidoo kale weerarkaasi uu watay oo uu ku weerar tagay. markii dambe waa uu geeriyooday. waxaa loo maleynayaa ayaa la yidhi in saraakiishii goobta u degdegtay in ay toogteen. muwaadiniinta ayaa laga dalbaday inay iskuulka isaga fogaadaan. booliska ayaa goobta xiray iyaga oo durbo baaritaan bilaabay. toogashadaasi iskuulka dhexe ka bilaabatay ee gobolka Texas ku yaala ayaa waxaa lagu dilay arday da-dooda ay u dhexeyso 5 ilaa 11 jir. waxaana naadira dhacdooyin noocaasi oo kale inay ka dhacaan dalkaasi Mareykanka. waa weerarkii ugu dambeeyay ee talaadadani ka dhaca ayaa la yidhi marka loo eego weerarada toogashada ee isxigxigay oo sii kordhayay oo dalkaasi Mareykanka ka dhacayay. gobernatoraha gobolkaasi Mr. Abbott waxa uu sheegay in qofka weerarka geystay uu yahay muwaadin kasoo jeeda gobolkaasi oo 18 sano jir ah. waxaana uu rasaastaasi uu hubiyey ilaa 19 arday oo u geeriyootay macalinkoodii, waxaana la fahmi karin waxyaabaha ku qasbay. isaga waa uu geeriyooday. waxaa loo maleynayaa mid ka mid a saraakiishii goobta usoo degdegtay inuu toogtay. 2 sarkaal oo kale oo iyagu goobta ku sugnaa ayaa dhaawac uu soo gaaray maadaama ay haleeshay rasaastii ninkaasi uu tuuray, balse dhaawacoodii wax khatara ma ahan ayaa la yidhi. warbaahinta rasmiga ee dalkaasi Mareykanka waxa ay shaacay ka qaadeen in qofkaasi hubaysnaa uu isagu bilaabay markii hore toogashada tooska ah. deegaanka uu ku yaalo iskuulada Uvalde ayaa waxa ay 35 kilomitir galbeedka ay kaga bigan yihiin magaalada San Antonio ee dalkaasi Mareykanka. waxaa laga kaxeeyay dhammaan ardaydii iyagu wax ka baranaysa iskuulada gobolka ku yaala. cisbitaalada maxalliga qaarkood waxaa la geeyay arday iskuulka wax ka barata oo iyagu xaalada degdeg ah ay la soo daristay. mas-uuliyiinta isbitaalka waqti hore waxay sheegeen in haweeney da-deedu ay ahayd 66 sano jir, iyadoo isbitaalka lagu daaweynayo cisbitaal ku yaala magaalada San Antonio, waxaana ay ahayd xaaladeedii mid aada u adag. waxaana la tilmaamayaa in markii ugu horeysay ay la kulantayba weerarka qofkaasi toogashada uu soo qaaday. cisbitaalka Uvalde Memorial ayaa waxa uu bayaan soo saaray Facebookana lagu baahiyey uu ku sheegay in 13 caruura loo qaaday cisbitaalka, iyadoo ay qaadeen kooxaha gurmadka ambalaasta iyo sidoo kale basaska caruurta iyagu iskuulada lagu geeyo. Facebook sidoo kale waxaa lagu baahiyay ayaa la yidhi 2 qof oo kale inay geeriyootay kadib markii cisbitaalka la geeyey. Don McLeon, duqa magaalada Uvalde, ayaa shabakada IBS News u sheegay in wadciga uu aada u daran yahay. waxaa ka qayb qaatay baaritaankaasi kooxda FBI-da oo iyagu durbaba tagay ayaa la yidhi goobta dhacdadu ay ka dhacday, sida shabakada CBS ay sheegtay. maalinta khamiista ayaa waxaa la tilmaamayay maalintii ugu dambeysa ee iskuulada in ay ahayd, maadaama arday gaaraysay ilaa 16,000 oo arday ay gobolkaasi iyagu wax ay ka bartaan.